muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Berbera ku soo badanayay muranka ka dhasha arrimaha dhulka. Mujaahid Axmed Ibraahim Maxamed oo maanta telefishinka Saab kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in magacii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal dad danyar ah lagaga qaaday dhulkii ay deganaayeen, isla markaana uu nasiib darro ku tilmaamay in maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin uu soo saaray waraaq cadaynaysa in dhulkan uu soo codsaday lana siiyey Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim, waxaana uu sheegay in taariikhda warqadan la soo saaray aanay waafaqsanayn muddadii uu noolaa marxuumku, waxaana uu ku tilmaamay warqad been abuur ah iyo dulmi loogu talagalay in lagu dhaco dhulka danyarta aan iyagu awoodin inay difaacaan hantidooda. Ibraahim Cigaal wuxuu lahaa dhul la oran jiray Saabiyanka oo guriya oo dhisan oo gidaarkiisu uu leeyahay kaabadale ummadoo dhami garanayso islaantii lagu qabay inuu shahay oo kii ka shaqeynayay inuu yahay oo caana oo saambuusa oo ayuu lahaa. gurigu waa sidiisiyo asaartiisi way taala gidaarkiisi wixisiyo barkadiisi xisbiga sameeyeen cid isku haysata ma jirto. sidoo maalintii hore ku hadlay Cali Maxamed Ibraahim Cigaal ka sheegtay waxa weeyaan way siro wamba guriga la yiraahdaa faylkiisa cid isku ma bahaysato meeshan gurigaas cabirkiisa waa la tagi doonaa de guri waa la garanayaa guriga wuu iibsaday Xaaji Ibraahim Cigaal ma ahay dhul la siiyay Ingiriisna ma siin dawladdiisa hore Soomaaliya ma siin tan Soomaaliland ma siin dhulka isaga ah inta yar ee aan ahayn 100 mitir square ka aan cabirkiisa la tagi doono la ogaan doono inta deerkiisu yaalo mooyaane dhulka inta kale ummad baa deganayd ummadaas ilaa 1991 markii dalka soo galay ayay degaysay waa dhulka imika u seesan ee uu imika seeska mariyo waa 750 dhinaca iyo 600 dhinaca de waa beera guri maaha markay cayn ka tayleen dhulkaas Ibraahim Cigaal lahaa waa beer ee guri maaha. mushkiladda waxa keenay waa waraaqahan waa sharciga waxa la sameeyay 2015 sharciga waxa sameeyay waa 420 mitir iyo 426 mitir 2015 baa la sameeyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo nool ayaa dhul soo codsaday baa la leeyahay oo xabaashi dub uga soo baxay deecida soo noolaysay Ilaahay ma inoo sheegin qof dhinto soo noolaada ninkii waraaqahan qoray isaga ka jawaabi doono ummad ciidda iyo camaarka ka badan oo maata oo jilicsan oo dadkii naafadii SNM iyo agoomi SNM u badan ayaa meesha degtay intiina Cigaal noolaa waan anaga waan ugu ogaa waa deganayn magaca dadkan ninkan meesha ka hadlaya in Cigaal dhalay waa iska muxuu ahaayay waa dhidaron ku kiciyay waxba ma oga 3 jeer buu hadlay markii hore wuxuu dhul 3 awow dhaxala baanu doonaynaa ayaa gurigii Saabiyanka oo faylkiisuna yahay Y001 ciidankii doraata gurigeyga burburiyay iyagoo askara iyo waxaan leeyahay iyagoo shaqaali dawladda hoose ah oo leh wax agaasimayaashii dawladda hoose ah nahay kuwa imika seeska farxaan burburiyana waa kuwii kuwa weerka soo xidhana waa kuwii waa shaqaali dawladda hoose gabagabadii Axmed Ibraahim Maxamed ayaa fariin u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kana codsaday inuu guddi madax bannaan u saaro murankan dhuleed ee ka soo ifbaxay magaalada Berbera. mudane madaxweyne waxa ka bilaabantay saaxil Darfur hor leh waxaanu ka codsanaynaa aanu si aad iyo aad kaaga codsanaynaa halka fidma ka soo socota xaalad meel xumay maraysa guddi dhexdhexaada oo annaga iyo inanka yar iyo dadka la dhibayo iyo waxba ka madax bannaan oo adigu aad diratay oo aad daarisay aan cidna la xiriirin oo dhexdhexaada meesha u dir. Sadam Waya Arag, telefishinka Saab.